farmaajo inaanu qabyaali ahayn waxaa tusaale kuugu filan dowladda iyo nidaamka dhan waxa ku metelayay haybta gaar ahaaneed iyo jifada uu ka soo jeedo nin biixilay ahaa oo command military ahaa oo experti ahaa oo ku-xigeenka ahaa generaal odewa iyo waxa ku metelayay kulana nin la yidhaahdo shaqaalaha hay'adda niisa maamule mar looga dhigay taasaa u ahayd tusaale inaanu qabyaali ahayn waxa kuu ah maanta safarka wafdiga ku maqan maraykanka waa wada haybta madaxweynaha tusaale waxa kuu ah kuwa uu shidaalka u magacaabay waa wada haybta madaxweynaha tusaale waxa kuu ah madaxtooyada wiilka raxan weyn mooyaane inta kale inay ardayga madaxweynaha yihiin horta ninku nin qabiil ma ahayna nin qaran buu ahaa waa sababta aniguna aan u difaacayo anoon hayb iyo qabiil la wadaagin oo ka dhashay Hargeysa iyo boos oo ay raas iyo arday isku sii yihiin isna ugu difaacayo taa aan kaga tago tan kale ahayd wuxuu la dagaalamay hayb gaara farmaajo waa loo xiisay xasan sheekh farmaajo hayb gaara lama dagaalamin ee siyaasiyiin ayaa isu baahaystay waxaa ka mid ahaa ka maxay tahay Hargeysa madaxweynaha ka Muuse oo maxay tahay taqaaniin oo la aragti ah Soomaaliland oo aaminsan inay dalka ka go'day inteeda kale oo waqooyi dhani maqan yahay wuu ka soo horjeeday Axmed Madoobe oo hayb laahina wuu ka soo horjeeday Deni oo hayb laahina wuu ka soo horjeeday oo ninka la yiraahdo maxay tahay qorqor iyo ninka la yiraahdo isagana soo qabo Ali Guudlaawena waa ay la socdeen horta ninku haddii uu qabyaali ahaan lahaa Axmed Madoobena in adeer buu u noqon lahaa haddii uu qabyaali ahaan lahaa Denina in adeer buu u noqon lahaa kama soo horjeed ninku nin qaran buu ahaa qabyaali muu ahayn tan